tii banaanbixii marka batay dowladana dowlad iska markaas dhalatay xoog ma lahayn oo waa cabsatay oo faylkii hoosaa la dhigay waa iska laabay marka haddana 75 Muuse Galaal markaas isaga far Carbeed markii hore watay waa ka baxay marka ma lahayn kuma jirin 18 far oo isaga wato kuma jirin kadara waa watay Yaasiin Cusmaan kii aabihiisu watay ma garatay yani dhaxdoodii shira jaamac far watay laatiino watay ma garatay marka يعني maxaan ku yiraahdaa loolan waa jiray laakiin ma ahan mid ka fashiliye kaas markii ay arkeen ilaa shuruuday ay sameysteen moogta shuruuda wixii buuxiye aan qaadanayna awal sharci la sameystay sharcigi markii cilmi afeed ahaan loo baaray tii Cusmaani waxa la arkay in intaasoo shay ka maqan Carabiga intaasoo shay ka maqan Laatiinkii ayaa wax yar leh ka maqnaaday marka tana u dhawaa leeyri loolanka soo jira laakiin baashan ma aragtay nidaamka ay sameysteen ayaa ka xoog badneedo ma aragtay u dhaweed xataa ina ogolaadaan ayagoon aan raali ka ahayn qaarkood dadweynaha kacay waxa la yiri fartaasa ayaa la sameynaa waxa dhici karta dadkii waxa soo baxay horta waxay ahayd tii Carabiga ahayd iyo tii Laatiinka ayaan u badneed hadana qof oo ahaa moogtahay laakiin Carabi dad badan aan raacsana tii Cusmaaniyadana maartay leegadii iyo aad ay u raacsanaayeen oo maartay dad badan isticmaali jiray 20 sano ka badan la isticmaali jiray waqtiga gumaysiga waa sida aad tiri waa culimada nafteeda in la kiciyaa dhici karta culimada la adeegsaday culimo way dadkan way Laatiina laakiin waxa dhici karta dad aan ogoleen oo Carabiga rabay am Cusmaaniye rabay inay ka dambeeyaan Allahu yaclam laakiin kaas waxa waaye waa maleun horta ani ma aaminsani tii hore in iyaga khilaafkoodii oo caqabada koowaad khilaaf waa jiray laakiin ma ahan taas waxay ahayd Laatiina dadweynihii dowladdu waxay ka cabsatay dadkan maartay kacdoonkaas ay ka cabsatay dowladana daciif ah tan labaad waxay ahayd kacaan oo laga baqaaya ayaa yimid oo dowladii awal iska daciifka ahayd ma aha tan oo qorigeeda halka u yaala waa laga baqaay marka dadkiina ayagana lama dhihin farteen qornaa lama dhihin guddiga go'aan ma gaarin kadar waa loo yeeri ka waran faraxad maartay taan oo maleynaysa in la qori karo marka asaga runtuu sheegay shuruudaha waxa buuxiyay Laatiin laakiin waxa ku xiga tayda ay labtiisa ku xigtay shuruudaha wax buuxiya Carabiga iyo Cusmaaniyada labadaan ay ahaayeen marka go'aankeena hore kaasoo ahaa nin walba loo yeeray adiga inta u maleynaysa aniga tanan u maleynaa adiga tanan way inta loo yimido war maxaa go'aamisan waxaan go'aaminay farta Laatiinka hal qorob ma jirto taas dowladda ayada warkoodii marka ay maartay xogta ka qaateen ayada go'aan gaartay golaha sare marka jiray ayaa go'aan ka gaaray waxay dheen Laatiinkan qaadanayeen saas waa kadib markii ay la tashadeen laakiin kadib markii ay la tashadeen ayaa maartay go'aanka ay soo saareen ayaga soo saareen guddiga ma laakiin tashigooda ka dambeeya tashigoodana waxa muuqata haddii ay ka soo horjeedi lahaayeen ma qaadan lahayn laakiin inuu u baday ku dhacday waxa waaye sidaan hore u sheegay waxa jiray meeshaas xukun oo waxa leh wuxuu rabo inuu hirgelinayo xoog ku hirgelinayo ayaa jiray aan leexad iyo waxaas aan ahayn taas ayaa door weyn ay ka ciyaartay marka isla markii nimankii waxa la yiri fartaasa la qaadanaya samee qaamuus buugaagna qora bas ayaga buugaag qorid iyo qaamuus la galeen nimankii guddiga ahaa markaste marka ciyaar meesha ma taalo oo waxay ahayd waxaan sameeyay waa la sameeyay dada jiray ka hor imaanay misaal waa xasuusanay wasiirka
waxbarashada markii 74 la gaaray waxaa la yiri waa in iskoolaadka lagu dhigaa ololihii waxbarashada kadib iskoolaadka in laga dhigaa farta af Soomaaliga marka ninkan dibad wax ku soo bartay mutacallim ahaa aqli ma galaayo yiri far oo maartay af Soomaali oo ereyadiisiba waa reer miyuun aan ahayn ma noqon karto luqad lagu gudbin karo cilmi ah wax aqli galaayo ma marka aadaan ku gudbin kara iska dhaafaa yiri shaqada waa laga saaray ninkii waa ka tagay marka haddii dadweynaha iyo shacbiga la raaci lahaa lama qori lahayn sidii la ahaan lahayd laakiin in loo baahan yahay mararka qaarkood xoog loo baahan yahay ayaa maartay ku tusaysa marka si daacadnimo ah iyo xoog iyo hil iyo hood dhinac walba ay xoog ay u geliyeen maartay markii ololaha la sameeyay dawladda yani meel kasta ay la tagaysay shacbiga iyo ardayda wax dad barayaan ka dhabay ahayd waan la hirgeliyay marka wax hadii go'aan aad gaartay maartay oo adag aad gaartay waa badana waa la fuliyaa